السلام عليكم kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food maanta waxaan inoo hayaa macmacaanka quruxda badan aad arkaysaan waa macmacaankan ugu talagalay ciida hadii la yiraahdo marka hore ayaan videoga u soo galiyay si dadku uga faa'iideystaan ay suuragal ugu noqoto inay sameeyaan maalinta ciida ama maalmaha loo dabaaldegayo ciideena quruxda badan waa Oreo balls baa la yiraahdaa masha Allah sidaas ayuu soo baxay flavor kala duwan ama sharaxaad qaabab kala duwan waan u sameeyay intaan videogeena guda galin hadii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar hadii kalena waxaan ka codsanayaa inaad ehelkaaga iyo asxaabtaada la sii wadaagto waxa uu ka kooban yahay cuntadeena maanta waxaan soo socda ama waxyaabaha soo socda ayaad u baahan tahay Oreo biscuit baad u baahan tahay sidoo kale laba xabadood weyn oo Oreo biscuitka intaan isticmaalayo sidoo kale waxaad u baahan tahay caanaha la yiraahdo evaporated milk ama kashahan ku darsano sprinkles sharaxaadana dusha kaga dareeyo weeyaan peanut lows weeyaan sidoo kale ama chocolate sprinkle waxyaabahan muhiimadu waxa ugu weyn waxa weeyaan caanaha iyo biscuitka intan kale waa sharaxaada qaababka kala duwan aan u sameynayo waxa ugu dambeeyaan idin tusayna wuxuu ahaa coconut marka iminka waxa aan guda galayaa inaan biscuitkayga ridqo laba option baad haysataa hadii aad macaanka badan xoog u neceb tahay biscuitka inta dhaxda ee malab kale ee cad aad ka saaraysaa hadii kale aad maalinta ka hayso macaan xoogana sida aan sameynayo ayaad sameynaysaa oo waad ridqaysaa isagoo malabkiisa la socdo insha Allah qoraalka oo English dusha ayaan idin soo saari doonaa si aad uga faa'iideysataan waxaan rajeynayaa videoga aad ka heli doontaan ina daawan doontaan hadii la hayra aniga dhiirigelinayay ii tahay idinkana maasha Allah wax yani kalifaada idinkuma hayso aad ayaan ugu mahadsantahay mar walba ii dhiirigelisaan anigu waxaan isticmaalayaa imika waa manual hand blender weeyaan laakiin ka electronic hadaad haysato waad isticmaali kartaa kaasa kaaga si fududba marka biscuitkii imika dixin ayaa ka soo dhigay marka waxaan sameynayaa biscuitka iyo waxaan isku yara qasayaa hadda caanahan evaporated milk ayaa la yiraahdaa kulay cidii qurbaha joogta aad ay u isticmaalayaan way arki karaan anagu shaaha ayaan u isticmaalnaa dad badan shaaha ay u isticmaalaan in lagu cadeysto waa caano yara adag oo fadhiya oo macaan oo caanaha kale ka macaan oo ka culus marka waxaad sameyn doontaa hadii Ilaahay yiraahdo in kugu filan adiga qiyaasta ayaad sameynaysaa aniga imika biscuitkii marka hore laba xabo samee ayaan islahaa laakiin hal xabo baan markii dambe sameeyay hadaad marka caanaha inta kugu filan qiyaasta intaas oo ku xidhantahay inuu ka jilcin weeyaan kaanana adkaanin in adiga qiyaasta maskaxdaada aad leedahay imika si fiican ayuu u qasmay oo way kugu filan tahay intaas ayuunbaad ku shubaysaa caanaha si fiican waad isku dhex gelinaysaa yani you have to mix it really well inuu isla wala blend garoobaa la doonayaa wixii isku wada yani qasmo ayaa la doonayaa ina caanihii iyo biscuitkii kala gaar noqonin sidaas ayuu soo baxay imika talaagada ayaan gelinayaa 15 daqiiqadood meelaha hadad ka badisana wax dhiba male waxa la doonayaa inay isku yara dhagaan caanaha iyo biscuitku marka waxaan imika u sameynayaa si gooba ah qacantana waan ku sameyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka waa goobada inay isku kaaleekaato marka milqacadaas ayaan qiyaas ahaan u isticmaalayaa hadhow tolo way wada leekaanayaan maadaama hal milqacad ama hal spoon oo kaliya taan isticmaalay waana wareejinaysaa ilaa inta goobo qurux badan kaaga noqonayso hadaad jeceshahay xataa biscuitka nooca Oreo inaad isticmaashid maaha waxaad isticmaali kartaa any other biscuit ku yaala aqalka laakiin yani noocan badan hadii jeer dadku jecel yihiin inay sameeyaan oo macaanka loo sameeyo I don't know dadka qaar chocolate ay xoog u jecel yihiin ayaan filayaa marka qaabab kala duwan baan imka u sameynayaa qaar sprinklekii xaga iyaalay baan dusha ka sii marinayaa qaarna looska qaarna coconutka ama muxuu ahaayay qumbaha qaarna chocolate sprinkle oo way kala duwan yihiin labada sprinkle aan haystaa midna waa chocolate midna wuxuu u badan yahay more strawberry flavor ayuu u badan yahay
marka haddii aad tahay qof xasaasiyad ku leh lowska waxaan kugula talin lahaa inaad yani lowska isticmaalin waxyaabo kale oo adiga aad xasaasiyad ku lahayn inaad isticmaasho ayaa muhiima muhiimadda aanu isticmaalay falefare kala duwan ama sharaxaado kala duwan waxa weeyaan yani way ku qurxinaysaa bileedka indhaha qofkana way soo jiidanaysaa qofka cunayaana wuxuu lahaanayaa yani options badan uu ka doorto ama waxyaabo badan uu kala doorto uu leeyahay marka masha Allah tabaaraka raxmaan waa tusaale ahaan umal intaa idiin tusay iminkana waan dhamaystirayaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan u malaynayaa bishii ramadaan qofkii diet gala iminka markuu ramadaantii baxday ciidda la galo macmacaanka walla wixii ka dhacay oo dhan uu dib ugu soo noqonayaa weydkiisa ama miisaankiisii insha Allah markii ramadaantu ina dhaafto haddii ilaahay idhaahdo iyo dabaaldega ramadaanta ee ciidda waxaan samayn doonaa fiidiyooyo kale oo qofkii doonaya inuu diet galo uu miisaanka ramadaanta soo yani kusoo biiro uu iska rido fiidiyooyaan usoo gelin doonaa insha Allah sidoo kale qofkii doonaya inuu miisaankiisa kordhiyo iyagana laftigooda yani cuntooyin u gaaran usoo gelin doonaa sidoo kale waxaan soo gelin doonaa haddii ilaahay idhaahdo cuntooyin caruurta u fiican korniinkooda caruurta u fiican in miisaan ay yani ku kordho ama waxyaabo kale oo general ah oo sidii routiinada kale cleaning routine morning routine adoo programyo aad u fara badan baan idin hayaa masha Allah tabaaraka raxmaan sidaas ayuu soo baxay macmacaankeenii اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يعني وما معان هذا فضل أقل كاغنا تكون سميسن كرتو حتى الضبكة ما قادنا يعني أوف إنما قلنا يسد وحنا ما سمينا يسد هذا وحوي يعني انتا يري كوبان تكون سمينا ساشن 10 دقيقة وكجرة تلاقة إيا ميلا 10 دقيقة كلا أديك كا قادنا سنة سميسد وقبضنا 20 دقيقة كا قادنا يعني المعمعان كا قرحة بدن كسور تورتد هذا يدوم هاسين تسال مرور بإيدي رجلسان وحين كجت جاية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi